الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين ورسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، والسلام يا دمانتين. سلام كدب waxaan soo haynay taariikhda ku saabsanayd halgankii bariga Afrika ee hogaaminayay imaamu Ahmed ibn Ibrahim al-Qasi iyo kitaabkii uu ka soo ururiyay inkii la oran jiray Ibn Shihab al-Jaysani oo ku magacaabay Tuhfatu Zaman. markaan si kooban u soo dulmaro qodobadii aan soo dhaafnay, waxaan soo dhaafnay maamulada ka jiray Harar iyo deegaamadii muslimiinta ay xukumayeen oo ay nimanka gaalada ah muddo badan ilaa 140 sanadood muddo ka badan ay ka soo weerarayeen. ninkii la oran jiray Garaad Abuun oo ciidan abaabulay oo meeshii qabsaday oo 7 sano haystay, ciidankaasna Axmed Gurey uu ka mid ahaa. Garaad Abuun oo la dilay, Cumar Diin ninka la yiraahdo oo ciidankii Axmed Gurey uu ku jiray la wareegay, asagana la dilay. Axmed Gurey oo ciidankii la wareegay oo waliba rag aad u tarayar la soo baxsaday, isaguna aakhirkii dilay ninkii sultaanka ay meesha ugu dambeeyay. muslimiintii deegaamada deganeed oo wadooyin jidgooyooyin iyo mooryaan iyo isbaarooyin iyo iyaga dhexdooda isdil iyo hawlahaasoo dhan ay ka jireen. imaamku marka halgamada hadda aynu ku jirro ama mawduuca maanta iyo wixii ka dambeeya wuxuu samaynayaa laba arrimood rabaa muslimiinta inuu ka baabi'iyo. awalan waxa weeye mushkilaadkii dhexdooda ahaa wuxuu rabaa inuu dibadda u jeediyo. second wuxuu rabaa jihaadkii ama halgankii ama dagaaladii bariga Afrika ka dhacayay ee muslimiintu ay la soo caadaysteen 140 sanadood inay iyagu difaacu yihiin. wuxuu rabaa inuu wejiga ka bedelo oo weji dalabiya u bedelo oo ah horta balgaaladu inay ogaadaan iyaga in duulaan lagu yahay. duulaamadan marka yararka ah oo aan dagaalada weyn oo dhan intaan la gaarin oo muslimiinta guduhu ayan arrintii la qabatimin ileen muddo badan wax ka maqnaayeen, wuxuu ugu talagalay imaamku inuu labada arrimood salka u dhigo oo dadka gudaha ku jiraan ay ogaadaan hawsha yaqaaneen in wax laga bedelay, kuwa gaaladina ay ogaadaan dadkii ay iska leeyin jireen oo dhici jireen oo dili jireen inay isbedeleen oo maanta indhaha ay soo kala hayaan. marka waxaan soo haynay isagoo ciidan soo abaabulay, kadibna uu imaamku leeyahay xadathani Abubakr ibn Ismaaciil wa kana yawmaidin munxadara annahu qaal. Abubakr ibn Ismaaciil ninka la yiraahdo baa ii warramay maalintaa raggii joogay buu ka mid ahaa oo goobjoog ahaa. kadibna wuxuu sheegay ciidankii muslimiintu inay aadeen meel la yiraahdo inay soo gaareen uma saaru ilaa mawdicin yusamma kaxal bari, halkaas soo gaareen oo ka mid ah min ardi dawaara, dhulka dawaara la yiraahdo. walaquu hunaaka xuraaban min alkafara arrijaala, halkaana waxay kula kulmeen ciidan ama koox yar oo xuraabta hadda wax ka wada ciidan yar oo gaalada ah, laakiin waa ciidan jidgooyo ah oo gaada camal baa meesha ku galay iyagoo aan iska jirin. waqad istamcu oo meesha ku ururay walazimu dariiqa, wadadii bay gooyeen dariiqan dayiqatan lilmuslimiin, wada ciriiriya oo muslimiintu marayeen bay ciidankaasi galeen. waaxrabu fiiha almuslimiina, halkaas ay muslimiintu kula dagaalameen. fadafira biha almuslimuuna binasri, halkaas aynu marna umalaynaya. kadibna ciidanka yarka ah oo jidgooyada ah muslimiintu waa jabiyeen, kafaradiina waa ka carareen meeshii, xoogaa baa laga laayay. kadibna wuxuu yidhi meesha waxaa ku taalay kaniisad la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa sahrab oo ay dhiseen lilmuluki almutaqadima, boqorradii hore baa dhisay. kadibna muslimiintu kaniisaddaa dab bay qabadsiiyeen. wantanuu raajiciina yuriiduuna bilaadahum, kadibna muslimiintu waxay isku dayeen inay waddankoodii u noqdaan, laakiin arrintaas waa laga tashan doonaa. wuxuu yidhi intii aan muslimiinta ayan gadaal usoo noqon, wa kaana lilkafarati xillatun fii mawdici yusamaa kuub, halkaasaan ku joojan umalayn. gaaladu waxaa ku taallay meesha buu yidhi meel tuula ah oo lagu magacaabo kuub oo u dhaxaysa bayna baladi almuslimiin wa bayna dalkafara, dhulka gaaladu degan tahay dhulka muslimiintu degan tahay, tuulo u dhaxaysa oo la oran jiray kuub, halkaas waxaa deganaa buu gaalo. kadibna muslimiintu markay halkaa marayeen ayay tashadeen. fashtaraw almuslimuuna fima baynahum fannaasu minhum yaquuluuna narjicu ilaa bilaadi almuslimiin wannaasu yaquuluuna narjicu ilaa bilaadi alkafara. kadibna muslimiinta halkaa maraya ayaa tala la isku noqday, laba qaybood baa la kala noqday. qole waxay yidhahdeen waddankeenni baan ku noqonanaa, halkaa dhaafi mayno. qolena waxay yidhahdeen joogsan mayne, horeynu u soconanaa, gaaladaynu foodi gelinayna. labadaa gruub labadii talada isugu yeeli ahayn. qolo saddexaad baa jirtay, wuxuu yihi wannaasu min almuslimiina harabuu bileyli min kayri cilmi alimaam yuriiduuna bilaadahum. qolo ka mid a muslimiintuna habeennimadiiba bay carareen ayadoon imaamku ogeyn, waddankoodii bay u carareen. farakiba alimaamu waraa'ahum falaxiqa bacdahum faradahum bidarb. kadibna imaamku nimankaa habeenkii baxsaday waa ka daba tegey, karbaashku kusoo celiyey oo muslimiinta ugu soo celiyey. adigu calaa kulli xaal lamaa wasala alcasaakiru ilaa kuub, meeshii yarayd ee muslimiinta iyo gaalada udhexaysa ee kuub la oran jiray, muslimiintu markay soo gaareen qaaluu lilimaami, dadkii rabay in xagga loo noqdo oo waddankii muslimiinta lagu noqdo aan gaalada lasii aadin, imaamku waxay ku yidhahdeen maa naruuxa ilaa bilaadi alxabasha, waddankii xabashida aadi mayno ilaa idaa rajacta zawjataka dalombira ilaa bilaadi almuslimiin, ilaa aad haweenaydaada dalombire la yidhaahdo waddankii muslimiinta u celisid, islaantani nala socon mayso aad qabtid. walaa taruuxu macana ilaa bilaadi alkufaar, noona raaci mayso waddankii gaalada. lianna alumaraa aladiina qablaka ma axadun kharaja bisawjatihi ila anta, waxaydan horjoogayaasha adiga kaa horreeyey nin haweenaydiisa asagoo wata dagaal iyo halgan usoo baxa oo kaa horreeya ma aanu arag, marka arrintaas yeeli maynaan. faqaalat zawjatuhu dalombira, islaantii laftigeedi baaba hadashay
waxay tiri ma ana arjicu anigu noqon maayo dagaalka ku jira fasaara biha ila balad al-kafara ila afat kadibna islaamti waxa la isku raacay in ciidanka raacdo qolada waa laga adkaaday islaamti waxay gabadhii oridii imaam axmed ciidankii bay raacday waxayna u dhaqaaqeen ila balad al-kafara oo waxa la qaatay taladii ahayd inaan wadankii loo noqon ee gaalada hore loogu soo socdo waxaana la beegay meesha la yiraahdo afat hadda waxaan maleynay hadda waliba dawtigeeda waa jirtaa dadka Itoobiya kala yaqaan baa kala yaqaan kadibna imaamku wuxuu sameeyay inta markii la isku raacay wixii rataba al-imam asakira wajiyusha ciidamadiisa uu kala habaystay wixii isku dubaritay wasaara bil-layl habeenkii uu dhaqaaqay yuriidu bilad al-habash isagoo doonaya wadanka xabashada inuu fooda geliyo hatta wasala ila hawaas meesha la yiraahdo hawaas meeshan hawaas kitaabkani wuxuu qorayaa awaash maaqan hada mardo mamyaal la geliyo maaqan oo wadiga taqaanaan ilaa ay hawaas ka gaareen وهو نهر كثير الماء وودي وين وبيا بدن وحنا كوريغا يدور على بلدان كثيرة وضمو وين أيو بيغا سمرا ومرا في أيام الخريف ولي بحلقة دايرة أيو بيوس بديه يقولي ما يقدر أحد يتعداه إلا على خشب يربطونه بجلود البقر من تحتها مثل الصندوق تسمى عندهم لغة عليها يقفنا ما أو ذكره إن وذيك كبده إلا إن أوفول مويان قري لو حرو حرقة خوص لغا حرو حرق اللقطة oo lagu magacaabo sumbuq xarag noocaasa oo qori lagu xiray xarag sacleeyahay baa hoos laga xiraa kaasa lagu gudbaabiyo amxarada agteedana waxa lagu magacaabaa yiri luqa labada magac waa leeyahay wadigaasi wuxuu yiri waa mutasil min daamud wuxuu ka soo bilowdaa ama soo gaaraa meesha la yiraahdo daamud ila an yaskuba fil bahr al malih alladhi bi jambi sayla ila uu bihiisu ay ku darsamaan ama ay ku qulqulaan badda dhanaan ee ku taala sayla dhinaceeda halkaas ka dhacaa wiilay ogaa wadigiiba ku dheeraaday kadibna wuxuu leeyahay imaamku ciidankiisa oo kala rabtay habeenkii una dhaqaaqay intaan ciidankii la gaarin muslimiinta hadda tala isugu noqdeen waxa laga tashaday xoolihii intii jidka lagu soo jiray gaalada laga helay si laga yeelaya ma qaybsanaa warma khumuska laga saaraya ni waliba ma wuxuu helay buu leeyahay qaniimadii baa laga hadlaya iyo ahkaamteedii kadibna wuxuu yidhi fashtara wal muslimuuna fima baynahum min ajli qaniima kadibna muslimiintii waxay ka tashadeen xoolihii gaalada laga helay intii dagaalada yar raxeedo hore socday maxaa laga yeelayaa laannahum maxaa yeelay buu lama dakhaluu arda dawaara markii arlu dawaara aynu soo dhaafnay ay soo galeen kaana baynahum anna man qani waxay isku ogaayeen oo dhexdooda ahaa anna man qanima shayan fahuwa bayna al-askari bisawiya waxa laala wixii muslimiintu ay helaan inay ciidankooda u dhexeeyaan marka meeshan mushkilad soo gashay oo ah dagaaladii hadda la soo gaaray qolo cinaad yar samaysay waxa noocaas ah jira marka kuwaas la rabayn qanimada laga qadiyo kuwaas marka murankoodii uu soo bilowday marka wuxuu yiri waxa la isku ogaa ardu dawaara markii la soo galay waxa laala wixii muslimiintu gacanta ku dhigaan si ciidanku u soo yahay فالناس منهم غنموا والناس منهم لم يغنموا لأجل عناد كان سبق بينهم waxaa dhacday marka dadkii qaarna waxbay heleen iyo xoolay gacanta ku dhigeen qaarna waxba ma ay helin waxaana sabab u ahaa buu yiri ayaga cinaad ka yimi ama cinaad iyaga u horeeyay ayaa keenay in xoolo heli waayeen dagaaladii ka dib dhaceen falama wasala almuslimuuna hawaas muslimiintu markay wadiga soo gaareen hawaas dakaru qaniimadii xoolay si ka yeelaabalay faqala almuslimuuna la naqnamu wala na'khudhu shay'an wama qanimnahu fa lillah qolo waxay yiraahdeen annagu xoolo ma rabno waxna qaadan mayno wax laala wixii aanu xoola gaalada ka qabsanay ilaahay daraadiis aanu u bixinaa dhammaantood wa illa man qanima shay'an fa huwa lahu qanima haddii kale nin waliba wuxuu helay buu leeyahay labada arrimood iyo ka dhaxayn mayso fastashaara imaamku wuxuu la tashaday garaadiin ninka la yidhahdo nin garaadiin la oran jiray oo imaama ayuu la tashaday oo kamid ah wuxuu yidhi min qabaa'ili sajarada aan uma aqaan waa siin iyo ja iyo ra iyo ha qabaa'ishaas ninkaas ka soo jeedaa garaadiin la yidhahdo imaamku ninkaasu la tashaday faqaala lahu wuxuu ku yidhi افعل ذلك سدا سمين سدا وسمين وامحي فحينئذ قال الإمام للجيش إمامكم مركز سعيدا كي وحكيري إذا أخرجتم الخمس حولها مركز سجيسان شن ميل وضع الله قيمنا يا ميل لله وللرسول وي وحولها مسلمين تبيتم مالك القدرة يا خمس كان مركز كسارتان فكل من غنم شيئا فهو الله وحلا على وحي سوهري يقول بوحو كعنت كل قاعد سجال كله انت امرك قنيمه دي هوشدين الماشا laga baxay imaamku ciidankiisa kala habaystay ilaa waxa la isku raaceen bilad xabasha muddo la kaliyo ثم رتب الإمام أحمد جيوش وعيدمديس وكلا هبيسي وقسم العساكر 3 فرق إذن كينا وحو قيبين 3 قيبوت فرقة أمر عليهم وزير عدله كوح وحو مدح وقد نكي الأورنج وزير عدله وأمرهم وحونا فريق أن يسير في جنب اليمين من بلاد آفات وحونا أمر كسيي إن أي سعودان أما أي كل جيانا مع عيدن كاس وكبحو إن عمديك ودن كلينا بلاد آفات وكان صاحب شور وعقل ورأي عدله كشاكينية وحينين طلب بدن وعقل بدن وأركتب بدن بوها وفرقة هذا ولدي كواد إن عمديك مرالي وفرقة أمر عليهم وزير نور بن إبراهيم كد قلاد الصدحات وحير كوحنا ومدح وقدقي وزير نيكل الأورنجري وزير نور ابن إبراهيم نيكل الأورنجري ومدح وقدقي وأمرهم وحفر أن يسير في جنب اليسار من آفات يجنا وحى الله فريق إن عبده
ayaad waddanka aafaad ka geli doontaa wafirqa thalitha qolada saddexaad ama kooxda saddexaad fiiha alimaamu imaam axmed baa ku dhex jira oo hogaamiye ka ومعهم الفرسان الأمجاد والأبدال الأجواد وصار في الوسط بين الفرقتين رجل hogaamiye yaasha ama taliyayaashii madhaafaanka ahaa oo dhan waa wataa isaguna wuxuu socday labadii firqo dhexdooda ayuu maray aniguna bartamahaas aan ku dhifanayaa buu yiri adiguna midigta soco adiguna bidixda soco ciidanka saasa loo kala habeeyay qolowda marka waxay la kulantay uu sheekhu galaya qoladii midigta maxay la kulmeen qoladii bidixda iyo qoladii dhexda intaasna way doonaa qolo wuxuu yiri marka fa amma ma kana min amri wazir cadale iyo ragii uu watay fa innahu saara fi jambi al-ayman wa lam yakun lahu ilm bil kafara dinac midig bay qaadeen gaaladana war iyo waxaas ma ay ahayn meesha in ciidan gaalahay uu dhanka midigta wuxuu ogon yahay war kama ay ahayn فبينما هو سائر في طريقه فإذا هو بخيام مضروبة أيجو iska soconaya oo wadada haya ayay waxay ku yimaadeen toonooyin taagan وفيها جيوش الكفر وبطارقتهم ciidamadii gaaladuna ay degan yihiin iyo hogaamiyeyaashoodii wadaadadii diinta nasaarada وكان الأمير على البطارقة nimanka ciidanka meesha fadhiyo gaalada waxa madax u ahaa hogaamiye u ahaa ninka la yiraahdo wanaag jaan baa wata wanaag jaan weynooba wuxuu yiri waa macnaahu biluqatihim erga ninkaas lagu magacaaba macnihiisuna waxa weeye luqadda axnashada marka loo eego waa asadul malik waa boqorka waa libaaxa boqorka magacaas leeyahay ninkaas meeshka ninkaasna wuxuu yiri al-ma'ruf wuxuu caan ku ahaa bi saaxibi aafad wuxuu macruuf ku ahaa aafad oo ninka madaxda ka ah haysto weeye وهو من أهل الشجاعة dadka geesiyaasha oo ay tigreega iyo amxaaradu ay leeyihiin oo tilmaamo buu kamid ahaa falam yumhilhu almuslimuuna illa an hamalu calayhi muslimiintu markay teendooyinka iyo ciidanka ku yimaadeen gaaladuna ay waruhayn ayaguna ay waruhayn muslimiintuna ay arkeen muslimiintu dhangaday saareen weerar bay ku qaadeen waqtataluu qitaalan shadiidan fi awal alfajri gelinkii hore ee subaxdii ayaa dagaal xuni meesha ka dhacay وكان فارس من فرسان المسلمين in geesi ah oo geesiyaashii muslimiinta kamid ah oo lagu magacaabo yiri farshaxam saduut oo min ahli dawaara kamid ah oo dhulka dawaara ragii ku dhashay kamid ah oo la oran jiray farshaxam saduut ayaa wuxuu yiri wuxuu ahaa ninkaasi wakana nasraniyan waagii hore wuxuu ahaa nin gaal ah ونزل wuxuuna soo degay oo ka yimi min balad al-kafara ila balad al-muslimin wa aslam gaaladu ka soo guuray wadankii muslimiintu soo degay kadibna waa islaam وحسن إسلامه ونشأ نشأ حسنا في عام بقول في مسلمين تقبر بار الدين تنقبر وحنا هذه وكان يبسوا عليه مركو إلا مركو وينوش يقول وكان كدمنا المامي بوكله وكان وحنا هنيك من الفرسان المعدودين المعروفين بالنجدة رجع جرجار كيه لذا يهلي ينبذ اللي يقان أيو كمذها وكان وحنا نحيل الجسم إن عاتاه ضوبان بها فقاتل عن بيدة الإسلام دفاع مسلمين يعادوا قد قالوا فحينئذ حلقاس وحمل على بدريق الملعون ونجدان ninkii dhamaa ee hogaamiyaha ah ee saaxiib aafad haytay ciidanka hogaaminayay ayuu ninkaasi isku qaaday wadarabahu darbatan jandalahu biha sari'an madaxu ka shiray aba carabiga kula laawanayna macnihiisu ninka madaxu ka gooyay wajala allah ruuha wal nar kana ilaahi ruuxdiisa naartu dadajiyay wa bi'sa al-qarar sheekha inta ku darsay faxina'idin mar Allah markii arkeen ninkii taliyaha aafad haytay oo ciidamada madax ka ahaa oo si aad u fudud ninkaasi madaxa uga shiray فانهزمت الكفرة والأدبار إذن كي قالوا واتمين وقتل منهم خلق كثير لا عدد لهم إذن هذا ترى بلما اللي قال لها وغنم المسلمون خيامهم وأموالهم بالأكشف وحل هذا وش من يشاء أي كعنت فهي المسلمين كعنت تبين أما القراع وحل إلى هذا قمانك فردها إيو بقلها إيو ضميرها إيو واحد صلى سكو دريبا لإله الله فولي تري واقع سكايد تكني كذا دوك شغي سايد وحيو أما القراع وحي قمانك أهمية إيو الآلات والمواشي فشيء لا يحسب وحي كعنت كده وحي قمانك إيو علابته إيو الدنيا waxaan la xisaabi karin bay gacanta ku dhigeen wasabu nisaahum wa amwaalhum naagahoodii iyo xooladoodina waa soo qafaasheen wasabu waxay soo qafaasheen inta khalat al-malik wanaag sagad ibn daawud ibn admas ibn zaraquf ninkaas waa ninka markaa boqortooyada Ethioopiyaanka haysta wuxuu yiri gabar ay habariyati dhashayna gacanta lagu soo dhigay waa habar wadaagtii faacadahu al-imam gabadha iyadoo la wada imaam Ahmad loo keenay imaam Ahmad wuxuu sameeyay faacadaha al-imam li wazir cadale ciidankan dagaalkan jabiyay ninkii hogaaminaya wasiir cadala inootii wasiirani war badan buu leeyahay shaqa badan ku keenay doona imaamku wuxuu siiyay wasiir cadal gacanta ka saaray gabadhii tan aad ku tagbiyo adigu guurso nabaday fa wasala biha ila badil muslimiin yasoo wata ayuu wadanka muslimiinta la soo gaaray wafadaha malikul habashata min alwazir kadibna gabadha waxa furtay oo lacag ka bixiyay in lagu soo furto boqorkii xabashida wasiirkii uu ka soo furtay wuxuuna kaga qaatay bi 50 uqiyatan min al-dhahab al-ahmar dahabka gaduudan konton waqiyadood oo dahabka gaduudan ama naagta lagu furtay haweenadaas wasiir cadalana lacagta la siiyay laana gabadha isaga imaam gacanta ka saaray kooxdaas waa koox cadala watay oo dhinaca mid qaaday qolyihii kala aaway wuxuu yiri ama firqati allati fiha al-imam
كوحدي وإمام كوشريميا فإنهم قصدوا إلى أندوكية وحي سود الجليين أو أيو قصدين بيش أندوكية الأورنجي أندوكية دوامحي وهي موضع مجمع الملك وميشا أي حرونت مدحتوية دا إثيوبيان أمريكا أوها وكانت وحال السودين يا أمريكا إذا كان يا قرولين كيف كشكينيا وكان دليل المسلمين على طريق رجل يسمى سيمو مسلمين توحى قرولين أها وودد تسيين نين لقوا مقعابة سيمو المعروف وهدنا اللي يقاني أما عامكو أما لقونا نيسي تشري تقرأ الأوريجي تقرأ نارتي صغروا لما قعيا وأنا بداية كده وكان يومئذ مسلما مال كان كاسي وحوها مسلم وعيدا كهجامني ثم بعد ذلك ارتد وتنسب مركا كذب أيوب الدوبي ودين تكبحي وهو النساروبي عياذا بالله ثم إنه لزم اثنين من الكثرة من كاسي مركو قروذين كها لبنين أو قالها أيوب عنده كويسي وأيوب سوق بصدي ووقفوا ما بين يد الإمام كأيوب عنده وسوق وأنت ودتك حاجة واختبره بالإمام عن الكفرة وهذه من شك الله يصوه لي أي إمام كوث وعاد قوري استقال ذي فقال وحي لا نعرف إلا طريق وناق جان فإنه قصد الطريق وزير عدل وحكي لي أنه ابنهي عيدا كي وتي وناق جان وأنك هو عدل السود لأنه صور شغني إنه كب حي وضد وزير عدل عيدا كي سأل لي وامر أنت أمروني قال أنت تنكور هنا بيدا أنا ابنهي عيدا كي وناق جان وهايستي إنه دنك ملك إذا كتشرو oo dhanka ciidanka cadala oo maray uu ku maqan yahay waana taas soo sheegnay cadala ay dhexda soo yeelan waana tii la dilay muslimiinta markaa imaamka iyo qoladan garwadeenka ay war uma hayaan in ciidanka cadala iyo wanaagsan ciidankiisa ay saleen kana madax laga jaray wuxuu yiri وكان في أندوكية كنيسة للنصارى meesha muslimiintu marka ay joogeen oo Andukiya la yiraahdo kaniisad weyn oo nasaarada lahayd baa ku taalay wadakhalha almuslimuuna min al-umara al-kufar min al-umara al-kibar muslimiintii waa weyneed oo dhan baa kaniisada galay waxa galay buu leeyahay مثل أمير حسين ابن أبي بكر الجارتي صاحب الدوارة بعد الفتح وأنك أمير حسين أولي ثلاثة وجود إنك قعنتك هاي وين مركي دمنا نقول الدوارة أو دم مركي اللي فرتي قعنت القوة دقي كسر مدح الله قدي ماشي واحد أركض أنت تركوا إمامية الشقي وحقورنا يا إمام هبل أو صاحب ميل هبلها بعد الفتح وحكوا ذا مسلمين تقول كمركي قصدين إنك مدح الله قدي قوم بالقوة مثل أمير حسين ابن أبي بكر الجارتي وصاحب الدوارة يعني الدوارة مدح كان نقضي مركي اللي فرت كذب وحكوا ماشي قلي والأمير علي نك اللي هذا صاحب عنقود ويسجل يقول عنقود الأورنجري مدح الله قدي بعد الفتح مركي اللي فرتي وجراد أحموش وقوسم أبو بكر والشيخ زاهد الكبير حامد بن زاهد الفاضل شيخ واشرة وذات كاسو يسمونه زاهد هذا رجع كمدها أو نقول عابي شربي واشرة أيوم ناس لها ودخل الإمام ومعه زوجته دولومبرا بنت محفوظ أمير الإمام كنا كنيسة واقع يدعو إلى سعة هوينة دي دولومبرا وقال لي مثل الأورنجري أمير محفوظ كمان أمير محفوظ بعد علي دولومبرا بنت أمير محفوظ بلاي معناه هذا هو أمير محفوظ كنا الرجل سرع يهتم شربي أمير كاتب علي يدعو رجع صورنا يا إمام كذا كنيسة دي فلم يجدوا فيها شيئا من الأموال وحولا ميشا اللي جمهلين فحرقوها وخربوها ميشا دب على الوقت إذا وقفوا وبينما هم كذلك إذ وصل بشير من وزير عدله يضع هلك على مريو أيها وحاسو قارنين بشارين أيها وبشارة وضع أوكي وزير عدله إذن كيسي يبشرهم بالنصر والضوف والقناع وعقوب بشارين أيها إذن كي وزير عدله إنه هناك جان دلي إذن كيسينه وكبوليستي أريد أسكب بشارين أيها إنه يقوليستين وأي ماشي قناع من أيهرين وبقتل بدريق وناقان إيوه هقاميه بدريق قان الأورنجري إلا الدلي فسرة المسلمين سرورا عظيمة المسلمين تعرفون هذا يقول فرحان ودقت المسلمون النقاقير والداسات داسديه يبهله لأفوف شريبة قراعين وحوغا فرحادة بالله استقال بانو مليانية داسات هو داسد عارقة أتقارنا ناقير كنا وجمع ناقوركي وحين وصل هرتي كوحدي وزير نور حداء ذن أيقنا لبدي قولة قلورة ضواهينا وأما ما كان من الفرقة التي فيها وزير نور تاسو شوقوا لغاية كوحدي وزير نور هقاميها كل احتري فصار في جنب اليسار من أرض أندوكية إذا عمدك أي أندوكية كمرين وقنم ورجع إلى عند الإمام استقنا تقال ميشا كمهلين لكن حوالي بدن مقالة كسودعي إمام كيف كسر نقضي وكذلك وزير عدل إطلاع صور نقضي ماشي إمام كسر نحلها بالسويم واجتمع المسلمون في أندوكية سقو صغورين وضرب الإمام خيمة بيضاء هل كان إمام كتاكتينو عد في أرض أندوكية من بلد الحبشة من بلاد آفات ليش اللي هذا أندوكية ووضن حبشة كمذا وبلاد الآفات كمذا هل كان سكان كذا فلما كان وقت العصر نظر المسلمون إلى ضلاع الكفر قريبا منهم دور عصر كله جوجو أيام المسلمين توحى قتي سهمدي قال هذا أميل ودوسو جاري سهم كي قال هذا أوسو دواري فركب الإمام وراءهم إمام كلفت جسوا وفرتكد وفولي إذن كلو حيري كاري طبعا هذا الإمام كون كارك دونا مركز توعينا كميل دكيو سهم ك إلى على الجود أوه الرئيسة يتجاه هرودين كا مركو أركي إلى على قال هذا إني ميل ودوسو جارين
إمامك رأي كده بتجي يجد ضبط بكم من نقط ومعه وتا جماعة من الفرسان رجعوا بنيال عيال سعودة والمحدة محجانها تلقي عيدا كل ماشي سيبوداي فانهزمت الكفرة قلدي إلى هذا هيد وعر المركز أركني إن إنك عيدا كسب حي وقتل منه علج واحد وحير هل قال بلقيت العلج وحوي وكافر مد عجمي هو قلنا حالي لا مركز دين بنتعرض استقالة يدلون يقنع علوجته وأنا أري معروف وواير على استعمال شيء فارسيين تبع الأورنجي لكن المسلمين تحدث وحنا عام كبحي عيد والبون دين الإسلام كهيسن أو عن عرب أهين أي علج لي لا وحير هل من بلقيت هل قال إن كان واحد اللي بيقول قتله كوشم أبو بكر إن كان مرح كسري وكان كوشم وحوا يومئذ فارسا مالك وحوا عن فرس وتا فنزل من فرسه وقتله انتو فرس كده جايبوا نكا قصة يدلي وانصر الإمام وأصحابه راجعين إلى المحطة إذا كان يركع أمرك عيرتين إمام كي يرجع لسه عليه وحيوصل النقدين سلقي عيدك فريق ومن اليوم الثاني مالك اللي بعد مركي لقاي أغار المسلمون في أرض آفاد والخيمة مضروبة مكانها مسلمين وحي ويرفض اللاعيين أرض كلكي آفاد الأورنج عيال وقف دي وحلا على وحارتان دون كسر عليه تندين وحي أهيد ماشي دي حرمت عيدك ماشي لقى مرة وغنم المسلمون غنائم كثيرة من الرقيق والآلات الضم بدن بيسوق صدني آلاف ورجعوا منهم ناسا إلى المحطة ضدنا وحي كسر النقدين حرد يكسر عليا مركي سوق صدني وبات منهم ناس في موضع القسم من الصومال وغيرهم هل كان وحا كد جويري أو يولان كميش هل كان لو قاضي هو بدن الصومال ذا كمية يقار قد يحصاي كذا أو الأورنجري باسم القسوي إذا ك لوك تابع بدن باسم القسوي لو استعماله رك بدن ركوها كمية ماشي حرمته أي هاي وصومال ذا بدن أي تكناين ومن عساكر الإمام إذا مدي إمام كل سعودي قار كمية حرمتي بيسكتشوا جانوا هذين كوسود البدن ومالك البعض ومن اليوم الثالث مالك صدحات تلقاه الإمام في الطريق ومعهم غنائم كثيرة رجع إذا كم إذا أو بلاد الآفات كسر كلام نقضي أيوة شيء في يوريمي أو غنائم بدن وطا من بنات البدارقة وأولادهم شيء كثير إن هو جامياشي ولادي النصارى عيال كودي أو أي واحد بدن كسر قصدين إذا كانوا ماشي ولا سمسوا عليه وحدا وفي يوم الرابع رتب الإمام عساكره وصار يريد مدينة جندبلة مالك أفراد إذا كي ماشي وكذا قاتشي إذا كي وكلها بيجي وحنا المجال اللي يراها جندبلة أيون فود جلينا ودليلهم وحنا قرودين كالأمير أحموس فارس في مقدم الجيش يتوقف فرس وشن وعيدن هرس عنيا كاس قرودين ومعه وحنا وتراية حمراء على الحسن واسطي وصاروا عامة يومهم في طريق ضيق في هبود وسعود مالنتي أو دم بيسعونيين ودعيريريا ومرنا لكوريا مرنا للعدعيو وتعبت الناس والدواب وسوشة الإمام يومئذ حملوها الرجال على رقاب من ضيق الطريق وهي دكشوا دوا دالين حوله ودالي هوين يدي وقبل الإمام أحمد مالك أقول له ركبة تورت كقاضي قربها له قاضي وضع عرير قدرات ودغاغوي ولي وحنا أردنا أورنا ولا ذاك مرفقا وكان وقت غروب الشمس راح المركز يسيد على المركز اللي فضربت خيبة الإمام أحمد في موضع يسمى ضيق كثير القاض وعيري راح المركز يسيد على أيا واحد لتاجت النبي إمامك جميع بوده المسلمين تا أيا واحد لقيت تاجبير ميل اللي يرها دق وديل يقاس كل ودقيا وميل المقعد ماشان تقول كثير القاض بالك قاض كل يوم كفر يا قاض كان بلاي يكون عند لو أركض دونا يسوي لقى شكينا يوم لكن في قيلان بيدوق غريب دولار ضربها تندد واحد تاجي أمير أحموش بعد جهد جهيد في أول العساكر عيدا كهرتي سجوا عن في كتشرين أيو عيدا كهرتي تندد كتاجي وكان الذي يضرب الخيمة في آخر القوم يسمى جرار عبد الناصر وحنا هاوي متك عيدا كجلاشي الصعداء والله قلت لك لتندد هنا تاجو يمكن اللي هذا جرار عبد الناصر أيها هوشة مشهور كهولي عنك فهمتني فقال أحموش وحكير وهو يضرب الخيمة يسوى جرار عبد الناصر وتندد تاجا يا أحموش أو نيك جروذين كهولي لما أتعبتهم مركي أي نوتي سيتندد تاجد يدي هوشة نصرك الله يا عبد الناصر عبد الناصر وإلهي أكوك جارو ما أقواك على ضرب الخيمة الله محاكو تبربدي تندد تاجد هذا الله محال أودي يتبرو هيسرق ودوا وحفر غاشي ولا واي تندد هذا هالجالس اللي جتاج فلما مضى شيء من الليل حبين كقار كمدي مركو تجي وصل إمام أحمد في ساقة في آخر الجيش إمام أحمد يرجسي ولقار بعض بيا إمام أحمد وحسو جاري عيدن كي لقطها عيدن قدام بيجي إلى خيمتي أي تندري سو جاري والبحدة يمش حرب اللي جتاج وهم قد تعبوا من عسكر الطريق فناموا ولم يأكلوا شيئا من كذا التعب أذوقوا تلقي بيسو جارين أيقوا عادوا قارن وضل حرير قدرات واسحرين وحلي ولم يأكلوا شيئا من كثرة التعب قف وعسكر حقلي مشروا ولا دقاق وذلك درادات ومن الصبح واجه دبري صار العسكر إلى موضع يسمى بازملة واجه مركب بري عيدن كي وحول دقاق ملي إلى بازملة وفي أرض آفات كمدة من بلاد الكفرة من اللي هذا وضن كي آفات الأورنجري
meel kamida oo wadankii gaalada ay gacanta ku hayseen meeshaas loo dhaqaaq وهو موضع مانع وميل عريري بدن وأجلتان كده أضع ركتاي وباتوا ليلتهم ومن الصبح دخلوا إلى جبل أبين كبي هالك بريان